anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, anigoo og inaanay ku jirin ajandaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay. maxaad ka og tahay taariikhda ra'iisul wasaarihii firfircoona kaasi oo hantay qulubta kumanaan dhalinyarada iyo waayeelka Soomaalida ka mid ah oo aanay indhahoodu qaban 30 sannadood ee u dambeeyay dawlad Soomaaliyeed oo sumcad iyo sharaf leh iyo siyaasi ka talinaya danta shacabka iyo waddanka. maxaad si ka og tahay taariikh nololeedkii suuqgeeyihii iyo markeetankii sumcadda qarannimada Soomaaliya iyo jilaagii siyaasadda cusub ee Soomaalida waa Xasan Cali Khayre. haddaba si aad wax badan uga ogaato arrimahaasi ku soo dhawow Kaaba TV waxaana barnaamijkani idinla socodsiin doona anigu Xamse Cabdi Yuusuf. fadlan haddaad ku cusub tahay channelkani subscribe dhaggan bareelkana furo si aad u hesho xogaha cusub iyo muuqaalada aanu soo gelino isla channel. Xasan Cali Khayre sanadii 1968 ayuu ku dhashay tuulada Jacar oo ilaa 50 kiiloomitir u jirta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. waxaanu dugsiyadiisa hoose sare iyo dhaxaba ku dhamaystay magaalada Muqdisho. markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay Soomaaliya ayuu sanadii 1991 qaxoonti ka noqday waddanka Norway. sanadii 1994 ayuu isqoray jaamacadda University of Oslo ee dalka Norway isagoo oo ka qalin jebiyay sanadii 1998 waxaanu bartay cilmiga siyaasadda ee political science-ka. sanadii 2001 ayuu shahaadada labaad ee masterka ka qaatay jaamacadda Harvard ee waddanka Ingiriiska. Xasan Cali Khayre waxa uu haystaa jinsiyadaha Soomaaliya iyo Norway. sanadii 2002 ayuu ku laabtay Norway waxaanu ka shaqeeyay hay'adda u qaabilsan waddankaasi qaxoontiga ee loo soo gaabiyo NRC isagoo oo ka mid noqday saraakiisheeda sarsare xarunta dhexe ee hay'addu ku leedahay magaalada Oslo. sanadii 2006 ayuu noqday madaxa hay'addaasi u qaabilsan Geeska Afrika waxaanu xilkaasi hayay muddo 9 sannadood. sanadii 2012 ayaa Xasan Cali Khayre waxa uu noqday madaxa shirkadda Ingiriiska ee la yiraahdo Soma Oil and Gas u qaabilsan qaaradda Afrika. warbixin ay soo saareen guddida cunaqabataynta ee qaramada midoobay ee wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa ay ku xiriirisay inuu gacan saar la lahaa Al-Shabaab eedaasi oo uu beeniyay. 23 bisha February sanadii 2017 ayaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo u magacaabay jagada ra'iisul wasaarenimo ee dalka Soomaaliya. 1 bisha Maarch ee isla sanadaasi ayaa baarlamaanku cod aqlabiyada ay ku meel mariyeen halka 25 July 2020 ay isla baarlamaanka Soomaaliya ay codkii kalsoonida kala noqdeen xukuumadii uu garwadeenka ka ahaa Xasan Cali Khayre isagoo oo ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaasi oo uga qayb galayay shir ballaaran oo uga socday dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. haddaba Xasan Cali Khayre 52 jirka saamaynta ku dhex yeeshay siyaasadda Soomaalida ayaa ilaa haatan aan la garanaynin cidda bedeli doonta.